وسؤال داويني دلك يا إسكالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقه ومريان حسن عبدي عملو قياجو waxaan maanta halkan aan nasiib ugu yeeshtay anigoo soo maray halku dhigii meesha u ahayd campaignka musharaxeena marna ah walaalkay qaaliga ah musharax Cabdicasiis Xasan Cabdi Amalow Giyaajo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la qaybsado wax yar oo xigmad ah oo ku saabsan electionka nagu soo foodleh runtii Cabdicasiis waa qof u qalma xilkan qaadi karana mas'uuliyadaas weyn kulligeena mas'uul naga noqon kara markaan aragnay aragtidiisa dheer iyo siduu wadankii 4 sano la soo dhaafay uu waxtar weyn oo taaban kara uu u sameeyay runtii waxaan u baahanahay qof mujtamaceena isbedel tusin kara waxaana u aragnay inuu yahay isbedelkiina tusin lahaa wadankaas aan wada jecelnahay Cabdicasiis Xasan Cabdi Amalow runtii waxaan u baahanahay qof fiiriya caruurta baaba'san oo meel walba joogto ku kala daadsan inuu qofkii noo soo aruurin lahaa uu noqdo waxaan u baahanahay dumarkeena xuquuqdooda la tuuray inuu noqdo kii xuquuqda dumarka soo qaban lahaa waxaan rabnaa inuu noqdo caruurtaas waxbarasho la'aanta ku dhacday 25 sano oo dagaaladii sokeeyay iyo kuwii kaleba na soo haayeen waxbarasho la'aanta ku dhacday waxaan rabnaa inuu u noqdo ninkii tusin lahaa iftiinkii waxbarashada runtii markaad hal qof oo dumar ah waxbarasho siisid waa adoo ummadoo dhan siisay ilaan dumarka waa hooyadii adduunka kala waday marka waxaan meeshaan rabaa inaan ku dhaho runtii Cabdicasiis Xasan Cabdi Amalow oo ah musharaxa sanadkan noo taagan anoo runtii dhahaynin waa wiil walaalka ah on biasna noqonaynin laakiin waxaan arkay waxtarkiisii iyo waxyaalihii uu qabtay iyo waxaan kulli u oomneen aan u wada baahneen haddaynu nahay dad wadaniyiin ah wadankoodina jecel marka ninkan walaalkay musharaxa ah ma ahan nin maaldoon ah iyo nin magacdoon ah intaba Allah baa intaas ku maneystay alxamdulillah marka waa iftiinkii tusin lahaa isbedelka wadanka u baahan yahay marka waxaan idinka codsanaynaa idinkoo open mind sameynaya maskaxdiina fura oo arka dadka sharaxan oo dhan qof walba platformkiisa aqriya fiiriya isbedelka aan heli karno it's not important qofka inuu helo loo baahan yahay inuu wingareeyo electionkan waxaan u baahanahay qofna qaban kara na siin kara isbedel muuqda runtii sloganka oo campaignkiisana waa take back Somalia oo macnaheedu uu yahay dib u hana Soomaaliya way naga farabaxsatay Soomaali baa leh waa inayna soo qabsanaa waa inaynu ajnabiga iyo dadka aan iska tuurnaa waa inaynu kartideennii iyo Soomaalideennii iyo sharafteenii iyo diintii nagula yaqaanay iyo dadkaan ahayn iyo legacy waalidkeen ayna siiyeen ayna tusiyeen waa inaan soo ceshanaa Ilaahay wuxuu naga dhigay ummad isku luqad ah isku diin ah iswada fahmaysa qabiilna annaga kumana soo korin mana naqaano Soomaali waa inoo Soomaali marka ninkan walaalkayna wuxuu yahay madaxweynaha u sharaxan ninkii Soomaali ka dhigi lahaa hal haddana waxaan idin barayaa Jeremy oo ah nin wadani asigaba ah oo wadankana fahansan markaasna tusinaayo sapoorka uu nasiinayo. Thank you, Maryan. I'm Jeremy Shulman from Washington, D.C., and it's an honor to be here in Toronto with the Somali community supporting Cabdicasiis Xasan Giyaajo Amalow for President of Somalia. It's exciting to see the deep level of support for Cabdicasiis all across North America. I think it's safe to say North America supports Cabdicasiis for President of Somalia. North America supports his bold vision for improving Somalia, rooted in improving the economy, bringing outside investment into the country to build infrastructure, rebuilding the Somali army to create peace and security for everybody, and reestablishing the sovereignty of the country. We support Cabdicasiis Amalow for president on November 30th. Take back Somalia. Take back Somalia. Somalia.
وسؤال داويني دلك يا إسكالي